madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa mar kale waxa uu sheegay in maamulkiisa uu diyaar u yahay wada hadal oo la galo dawladda federaalka ee Soomaaliya. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan Kismaayo naga soo diray. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo khudbad ka jeedinayay munaasabad lagu sagootinayay madaxdii ka soo qayb gashay xafladda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland oo 12 bishan lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland. Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in maamulkiisa uu diyaar u yahay wada hadal uu la yeesho dawladda Soomaaliya waxa uu dhinaca kale sheegay in aan la aqbali karin in madaxda dalka ay sameeyaan muddo kororsi. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale carabaabay in dawladda Soomaaliya laga doonayo in ay la timaado qorshaha doorashada 2021 taas oo uu sheegay in haatan aysan jirin wada tashi ay kala sameynayso dawlad goboleedyada dalka ka jira. saaxiibaday madaxda dawladda federaalka waan ogolahay waa madaxdayadii gogasha xafladda inay nagala soo qayb galaan aad bay u fiicnaan inkastoo abshir uu matalay waxaan rabnaa waddanka iyagaa xukuma iyagaa waalida iyagaa laga rabaa mas'uuliyadda inay iyagu qaataan oo waddankan hagaan baa laga rabaa annagu khilaaf ma wadno xumaatadooda kama shaqaynayno wanaag baan rabnaa hoggaamintoodaan rabnaa waqtigooda inay dhammaystaan baan rabnaa kuwa damaca kaga jira inay doorasho sidii shalay nin waliba ku yimaadaan rabnaa aan ilaalino oo middaa ka shaqeeyeen oo madaxda dawladda federaalka dawlado kale iyo cid baa faragelisay iyo waxba haddii inagu dhexdeen aan wax isku qaqabanno inaan wax kale iska sheegno waxyaalo kale isku tuutuuno dawladda la isku tuuno waxaasoo dhan way imanaysaa maxaa lagu sixi karaa wixii xumaada maanta waxaa iskale mas-uuliyadda madaxda dawladda federaalka Soomaaliya sababtoo iyagaa waalida sida kuwii ka horreeyay ay u dhammaynayaan dariiqa la marayo iyo doorashadu noocay noqonayso iyo waqtiga in la ilaaliyo iyo inaan lagu fakerin isku darsi iyo in dastuurkii laga shaqeeyo iyo in wax la wada qabsado iyo in talada la wada leeyahay waddankii waa federalism buu qaatay. madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa ugu dambeyntii soo hadal qaaday in Soomaaliya ay haatan u baahan tahay dib u heshiisiin qaran. hadalka madaxweynaha maamulka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa imaanaya xilli khilaaf uu ka dhex taagan yahay dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo uu khilaafkoodu ka bilowday habraaca doorashada Jubbaland ay u martay. Cabdimajiid Cabaas Aadan Fantastic idaacadda kulmiye magaalada Kismaayo. guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa waxa uu ku baaqay in amniga gobolka Banaadir la hoosgeeyo maamulka gobolka si loo helo cid lagula xisaabtamo ammaanka caasimadda. Yunis Duraan Cali ayaa warkan dhameystiraya. guddoomiyihii hore ee maamulka gobolka Banaadir ahna duqii hore ee caasimadda magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo ka hadlayay amniga Muqdisho ayaa sheegay inay habboon tahay in lagu soo wareejiyo amniga magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir. gudoomiye Taabid ayaa sheegay dhinaca kale in wali aysan jirin cid qaadatay mas'uuliyadda amni darre ee Muqdisho ka dhacda maalin walba waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay cid qaadatay mas'uuliyadda dhacdooyinka amni darre ka dhaca gobolka Banaadir si isla xisaabtan u yimaado. Taabid ayaa ugu baaqay dawladda Soomaaliya inay la timaado istiraatiijiyad cusub oo amniga wax looga qabanayo si gobol ilaa heer degmo looga fuliyo. runtii aan jeedina horta waa laba qodob talan waxay ku aadan tahay dhinaca waxaan ku baaqayaa in maamulka gobolka Banaadir ee jooga amniga sidaaba inuu mas'uuliyad yeesho oo amniga cid lagu xisaabtamo si loo xaqiijiyo taaka walba oo magaalada ku taqla inay qof mas'uuliyadeeda qaado taana amniga waa inuu lahaanshiyo yeeshaa dawladda federaalkana qorshaha amniga guud ay dejisaa fulinteedana heer goboleed heer dawlad goboleed heer degmo ilaa heer waax ilaa heer tuulo la gaarsiiyo oo saa lagu fuliyo ayaa talada soo jeedin lahaa. midda kale ee muhiimka ah yacni loo eegaynin ama wax lagu raadinayay wax alla wixii meeshaas ka dhacay mas'uuliyadeeda in loo turjumo loo bedelo ficil la qaado oo cadowga saas maalin walba ummadda u saaran looga dulqaado. waxaan rabaa inaan midaan ku daro hadalkan ayaa imaanaya iyadoo wadooyinka magaalada ay kala xiran yihiin sidaas oo ay tahana waxaa Muqdisho ka dhacaya falal liddi ku ah amniga. gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa xildhibaanada maamulkaasi waxa uu ku amray in ay si degdeg ah ku soo xaadiraan magaalada Jowhar. Cali Cilmi Salaad ayaana ka waramaya.
gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre ayaa faray dhammaan xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabelle inay soo xaadiraan magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle si uu u furmo kulamada ay yeelanayaan xildhibaanada maamulkaas. sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in la iska kaashado la dagaalanka al-shabaab waa sida uu hadalka u dhigay. ciidamada amniga iyo dhammaan qaybaha sidoo waxaan u baaqayaa inay amnigooda ilaashadaan inay iska kaashadaan sidii amniga loo suulay Hirshabelle qof kastana mas'uuliyad ayaa ka saaran in maxay ahayd Hirshabelle ay amnigeeda iyo horumarkeeda qayb qaad waajib ay ku tahay. marka waxaan leeyahay halis kaashade yani aan iska dhicin cadawga meel kasta taagan Hirshabelle oo ahaay dhibaatayna dhammaan xildhibaanada dowladda Hirshabelle ka maqan xarunta Hirshabelle inay si degdeg ah u soo galaan si maxay ahayd howlaha baarlamaanka loo dirdirgeliyo iyagana waxaa laga codsanayaa inay si dhaqso ah cid kastoo ka maqan inay soo galaan muxuu ahaay xarunta dowladda Hirshabelle ayadana ayaan u baaqayaa horena waan yani fariintaas waan ugu diray waxaan leeyahay si degdeg ah lagu soo gal aad u mahadsan. dhalinyaro careysan ayaa xalay xiray wadooyinka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool kadib markii maamulka magaaladaasi uu soo saaray amar ku socda wadayaasha mootobajaajka. Cumar Maxamed Soomane ayaa dhameystiraya. dhalinyaradan isu soo baxay ee soo dhoobtay wadooyinka laamiga ah ee bartamaha ka mara magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa ay ka hor yimaadeen amar ka soo baxay maamulka dawladda hoose ee magaaladaasi. dhalinyaradan ayaa waxa ay ahaayeen kuwa kaxeeya gaadiidka bajaajka ee ka dhex shaqeeya gudaha magaalada Laascaanood waxaana ay sheegeen in aysan u cuntami karin amar ka soo baxay maamulka dawladda hoose ee magaaladaasi. dawladda hoose ee magaalada Laascaanood ayaa shaqo joojin ku samaysay gabi ahaanba mootooyinka bajaajka ee ka dhex shaqeeya gudaha magaalada Laascaanood waxaana ay sheegtay in la xakameynayo tirada gaadiidka bajaajka ee gudaha magaaladaasi ka dhex shaqeeya. waxaana maamulka dawladda hoose uu sheegay in la sameynayo nidaam iyo sharci ay ku shaqeeyaan darawalada kaxeeya gaadiidka bajaajka ee gudaha magaaladaasi ka howlgala. haddaba amarka kadib maamulka dawladda hoose ee Laascaanood waxay dhalintu sheegeen in amarka ka soo baxay maamulka dawladda hoose uu yahay mid aan lagu shaqayn karin isla markaana ay ka biyadiidsan yihiin. gudoomiyaha maamulka dawladda hoose ee degmada Laascaanood oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay xilligan in ay wadaan qorshayaal ay ku xalinayaan cabashadan ay soo jeedinayaan darawalada kaxaysa gaadiidka bajaajka ee gudaha magaaladaasi ka dhex shaqeeya. talaabada amarka ka soo baxay maamulka dawladda hoose ee Laascaanood ayaa noqonaya kii ugu horeeyay tan iyo markii gudaha magaaladaasi ay si aad ah ugu soo bateen mootooyinka bajaajka ah oo ay si weyn u isticmaalaan dadka ku nool magaalada Laascaanood. markaana aan eegno wararka gobolka Shabeellada Dhexe. ciidamada amniga magaalada Jowhar ayaa kordhiyay baaritaanada ay ka sameynayaan gudaha magaaladaasi kadib markii ay dilal dhowr ah ay ka dhaceen magaaladaasi. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan inoo haya. ciidamada ammaanka magaalada Jowhar ayaa waxay sameeyeen baaritaano ay dad ku soo qabteen kuwaasi ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee magaalada Jowhar. baaritaanada ay sameeyeen ciidamada ammaanka ayaa waxay ku soo qabteen dhalinyaro fara badan kuwaasi ay geeyeen saldhigga booliiska degmada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe iyadoona ay halkaasi ku xiran yihiin kuwo kale hore loo soo qabtay. habeen ka hor ayaa magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii amniga gobolka Shabeellada Dhexe kaasi oo gurigiisa lagu weeraray bangacmeed isla markaana ay ku geeriyoodeen gudoomiyaha iyo wiil uu dhalay. maamulka degmada Jowhar oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in dhalinyarada ay soo qabteen ay ku wadaan baaritaano isla markaana cidii wax dambi lagu waayo la sii daan doono sida ay sheegeen maamulka degmada Jowhar. qoysas ka barakacay fatahaada webiga Shabeelle ayaa gaaray deegaano hoostaga magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Ismaan Aadan Careys ayaana warkan Beledweyne inooga soo diray. qoyskani gaaray deegaanka Ceel Jaalle ayaa kuwa dega goobaha durba ay sameeyaan fatahaada biyaha webiga Shabeelle kuwa durba bilaabay inay goob ay degaan ka sii qabsadaan deegaanka Ceel Jaalle oo xilligan ay ku haysato hoy la'aan, caafimaad darro, biyo la'aan maadaama aysan jirin heed u istaagtay ilaa iminka wax ka qabashada dadka xaaladda adag ku haysto deegaanka Ceel Jaalle ay u barakaceen. qaar ka mid ah dhalinyarada ku sugan deegaanka Ceel Jaalle waxa garadkooda ayaa ii sheegay inay iskooda soo qaameen ayna u gurmadeen walaaloodu ku soo barakacay. dad u badan magaalada hoosana ka soo barakacay oonan wax ay haystaan hadda aysan lahayn bac ma wataan daad ma haystaan biyana ma haystaan dadkaasaa na soo gaaray deegaanka odayaasha dhaqanka iyo ururka dhalinyarada inta ka dhaxayso
waxaan samaynay marka inaan guddi oo malaha dhallinyaradii odayaasha aan samaynay gobol gaara iyo degdegaan oo malaha aan la samayno wixii aan u qari karnana aan u samayno walaalle dadan xaddahayna soo baxaya dadan xaddahayna maanta iyo shalaba soo baxayay dadku marka aad bay u soo kacayaan gaariyaasha iyo gaargacanada iyo baabuurtaba dadka si dhulkliyaa la waday walaal haddaan soo koobo haddaan nahay deegaanka jaalle odayaasha iyo ururka dhallinyarada iskaasanayo waxaan ka codsanaynaa in gobolka hiiraan iyo mas-uuliyiinta gobolka madaxweynaha hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka in ay ka soo gaaraan dadkaas wax allaala waxay u weeri karaan xilli kala duwan aan la samaynay kilinka sana ismaamulka soomaaliya dalka etoobiya ayaa waxay kuu sheegayaan in hoosudhac ballaaran uu jiro biyaha faraha badan ee xilligan laga dareemayo magaalada beledweyne iyo deegaanada la xidhiirana ay yihiin daadad xoogan ee kasoo rogmaday buuraha iyo waadiyada kuwa kusoo shubmaya webiga shabeelle balse aysan jirin cabsi laga qabo fataad uu sameeyo webiga shabeelle. cismaan aadan carays, warbaahinta KNN, beledweyne. halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda kulmiye ee muqdisho. Mareykanka ayaa cunuqabateeyay 2 wasaaradood iyo 3 sarkaal oo dowladda Turkiga taasi oo uu jawaab uga dhigayo weerarka uu wadanka ku qaaday waqooyiga Syria. Madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kale wacay dhigiisa Rajab Tayyip Erdogan si uu ugu dalbado xabad joojin degdeg ah. Sidaas waxaa warbaahinta u sheegay madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence ayaa sheegay in uu sida ugu dhaqsiyaha badan ugu safri doono gobolka. Ciidanka dowladda Syria ayaa galay deegaano ka tirsan waqooyi bari taasi oo ay ka dhalan karto in ay isku dhacaan xoogaga uu Turkiga hogaaminayo. isagoo warbaahinta kula hadlayay magaalada Washington ayaa xogayaha lacagta waxa uu sheegay in ay cunaqabateyntu aad u adag tahay isla markaana ay saameyn adag ku yeelan karto dhaqaalaha Turkiga. Jawaab ahaan dowladda Turkiga waxa ay sheegtay in ay dib u eegi doonto wada shaqeynta ay la leedahay Midowga Yurub sababtoo ah dhaqankooda sharci darrada iyo eexda ah. ugu dambeyntiina dhageystayaal dibadbaxyo rabshado wata ayaa ka qarxay magaalada Barcelona kadib markii maxkamadda sare ee Spain ay sarkaal ka mid ah